haweenka abeel kamid ah beelaha dega magaalada Gaarisa ayaa caleema saareen haweenay ugaasada taasoo mathali doonto danta guud ee beeshaasi. Ugaasad Sami ayaa noqotay haweenaydii ugu horeysay oo loo caleema saaro ugaasnimo, taasi oo ay soo dhaweeyeen odayaasha beeshaasi. waxay ka tashadeen ayagoo mid ah inay is caleema saaraan, guddi qabsadaan, mideeyo waxay gaar uga socdaan ma jiro tolka kamid yihiin, awdaaqay kamid yihiin, ogaadeen kamid yihiin, Soomaaliya kamid yihiin. waxay diyaar u yihiin inay danta tolaad ay diyaar u yihiin haddii aydan qabsanayeen haddii tol wax u qabanayeen inay diyaar noqdaan oo iskaalmeystaan oo walaal noqdaan oo wax imaado dib iyo dheefba inay qaybsadaan bay u midoobeen. jirkan waxaa iskale dumarka Qaasin Cabdikariim baa iskale, annagana way nagu cadimeen, way noogu yeerteen, annagana waa ku waafaqnoo raalli baan ku noqonnay. wax alla wixii dantooda oo danta Qaasin Cabdikariim oo midnimo iyo muwaafaqo iyo wadajir yay iskugu imaadeen. annagana midaasaan yaan ku waafaqnay oo raalli aan ka nahay. wax alla wixii tolka dhaqankiisa inay ku dadaalaan baan annagana raalli ka nahay. qaar ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay caleema saarkani ayaa sheegay in olojeedada xafladani ay tahay mideynta haweenka ayna tusaale u noqon doonto haweenka kale ee ku dhaqan ismaamulka Gaarisa. ugaasada maanta aan caleema saarnay waxaa la dhahay Samee Axmed Haaruun, waa maamada bilcaanta Qaasin Cabdikariim aan madax uga dhignay. annaga oo 9 oo iyada ay 10 nagu tahayna waan la shaqaynaynaa. waxaan u caleema saarnay midnimo Qaasin. wax xumaan aan wadno ma lahan, waxaan wax u dhimayno ma lahan. indii uu ku diraa, gafana uu ku diraa, sanata uu ku diraa, umirab uu ku diraa, maxay ahaday MCA wax walba ay ku diraa. wax hadda aan raadinayno ama siyaasad aan u soconno ma jirto, tu dambana lama gaarin. midnimo Qaasin baan muujinaynaa. Samee Axmed Haaruun أنا على مسألة من ماذا قاسم بان كهلين، من ماذا قاسم بان كهلين، قاسم من ما ويلم وكلا الصعدة لا تسكح جالسن معه ولا لك شلع عن صدرنا أما بيها هذا ما قفنا هذا أما قبلها هاته نن ما أنت نعقانسن أو واحد أو وطنه وإحنا هجادين ملحة، لكن هذا هالكون هاي ردنا نرى بالقلها بالعند قاسم عبدكريم بيرد تاجن كفر من لها هل يلا بيسد هلا دومن تعالسان كتشنا maamadan maanta la doorto waxa u doorana Qaasin dibka uu qabo, qaaraanka uu qabo, diinka uu qabo. maamadina ma taleeynayto ana kabloon wax kama qabna ma dhaayna eed waan qabna waana badanha maxabad isku sheegi. maamadan waxa u doorana anaga dibka aan qabanayno mudasho. ugu dambeyntii ugaasada ayaa ka hadashay madasha, taasi oo u mahad celisay dhammaan dadkii ka soo qaybgalay caleema saarka, oo sheegtay haweenkii ka soo qaybgalay xafladani in midnimada lagu dadaalo. magacayga waxa la dhahaa Samee Axmed Haaruun, waxaan deganahay Gaarisa County. waxaan isku caleema saaray midnimo iyo walaalnimo iyo umoja. walaalnimo wax u dhimayna ma laho, nima wax u qabna ma laho. beesho kala daadsaneed inaan isku aruursanaynay inaan anagoo uur faraxsan aan walaal aan ahaano oo umoja muujino umbaarnay in aan wax u qabna ma laha. dawladda way dhisan tahay, wax alla wixii laga doonayo baan ka doonaynaa. walaalahayna waxaan ka tagano baan ka sugahaynaa. wax xun oo annaga qabno oo xumaan oo maanta aan xalfadan u dhigana ma laha. si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay haweeney loo caleema saaro ugaasnimo, waxayna arrinkan la yaab la noqotay bulshada ku dhaqan magaalada Gaarisa. Maxamed Mooge, warbaahinta Star, magaalada Gaarisa.